أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka ee doctor minow dabiib yahay. Caawa waxaynu ka hadlaynaa qaxwada ama kafeega. Qaxwada waxay ka mid tahay cabitaanada aad iyo aad loo isticmaalo adduunka aynu ku loonahay. Wadamo badan ayaa abuurta, wadamana waa loo dhoofiyaa. Kuwa abuurta iyo kuwa loo dhoofiyaba dad badan oo ku nool ayaa aad iyo aad u isticmaala. waayadii hore waxaynu maqli jiray in kafeega ama qaxwada ay caafimaadka u wanaagsaneen, inay keeni karto wadna xanuun, inay waxaan keeni karto ama waxaas keento. sidaa darteed ay habboon tahay inaan la iska badanin. laakiinse waxaa la ogaaday in arrinku uu saas ahayn oo ay ka duwan tahay. dadka lagu sheegayay in kafeega uu wadna xanuun uu keenayo, kafeega ma aha waxaa dhibka keenayo. waa dad sigaar aad iyo aad u caba, waa dad dhiikar qaba, waa dad culeyskoodu zaa'id yahay, waa dad fadhigoodu badan yahay oo aan jimicsi samaynin. marka dhibkoodii ayay waxay la soo aadeen kafeegii oo aan waxba dhibaato saa u geysanin haddii sidii wanaagsanayd ee loogu talagalay loo isticmaalo. marka haddaanu ka reebno sigaarka, qofka hadduunan sigaar cabaynin, dhiikarkiisa uu control xakamaysan yahay, ama uuba qabinba culeyskiisa uusan kacsanayn, kolestaroolkiisana inay aada u kacsanayn oo ay caadi tahay, haddana qofka uu jimicsi samaynayo, kafee hadduu cabo ama qaxwo cabo wax dhib ah oo saa ah ma keenayso. waxaaba la arkaa inay faa'iidooyin leedahay. faa'iidooyinka maxaa ka mid ah? midda ugu horeysa oo qofka markuu kafeega cabo ama qaxwada cabo aynu ka arkayna waxay tahay mid isla markiiba ama daqiiqado kadib qofkii jawigiisa uu isbedelayo, in farxad ay ka muuqanayso, in firfircoonidiisii iyo tabartiisii ay kordhayso, howl maalmeedkiina uu si fiican u waajihi karo oo maskaxdii ay u furfurmayso. taa waa faa'iidada degdega ah oo kafeega dadka ay u cabaan laguna arko, kafeega ama qaxwada. midda muddada dheer soo baxayso waa markuu kafeega qofku uu muddo cabo, maalintii ilaa 2 koob ama 3 koob ama 4 koobba ha noqotee, hadduu cabo waxa ay keenaysaa oo lagu arkay in dadka kafeega saas u isticmaala ay ku yar tahayba wadna xanuunka, in wadnahoodii uu howsha ka fariisto oo uu howlgab noqdo oo si fiican u shaqayn waayo, ama heart failure waxa loo yaqaano inay ku yar tahay. waxaa kaloo la arkay dadka kafeega caba in kaadi sokorowga nooca 2 type 2 diabetes inay iyaguna ku yar tahay. waase inaadan sokor ku darsan ama labeen badan ama creamer ama caano badan ama caanaha loo yaqaano konton midkay dhahaan 50-50 oo labeentiisu ay zaa'id u tahay. marka caanihii adoon caano culus ku darsanaynin ama sokor ku daraynin oo kafeegii oo qalli ah aad cabayso, markaa ayaad faa'iidadiisii gaaraysaa. waxaa kale la arkay dadka kafeega caba in beerkooda cudurrada beerku ay ku yar tahay, inay ku yar tahay cudurrada raggana sidoo kale cudurrada prostate-ka ku dhaca inay ku yar tahay. waxaa kaloo la arkay cudurrada dhimirka sida cudurrada isku dardarsanka ama hantatowga, kan ugu badan loo yaqaano Alzheimer's disease, dementia of Alzheimer, inay ku yaraanayso qofka kafeega cabo ayaa la arkay. waxaa kaloo ku yaraada cudurka loo yaqaano Parkinson's disease oo lalmada keena, oo lagu arko qofka qaba inuu soo goto oo markaa inuu lacag tiranaya aad u malaynayso, waa qofka wuxuu maaragtay gacmihiisii ayuu controli karin oo jaraynaya, marka lalmada ayaa lagu arkaya. marka Parkinson disease fursadda ay ugu dhici lahaydna way yaraan kartaa markuu qofkii kafee u daa'imo. taa waa faa'iidooyinkii. marka ma jiraan dhibaatooyin uu keeni karo
kafeega. wax walba oo adduunka yaallo faa'iido iyo khasaaro way isku wataan. haddii aad iska badiso waxaa dhici karta in qofkii uu naxdin badan uu dareemayo, walwal inuu dareemi karo, inuu gacmihiisii ama korkiisii uu jaraynayo, waayo waxaa ka batay kafeyinkii badanna qiyaastii loogu talagalayna uu ka badiyey. waxay keenaysaa in neervihii ay soo deeyaan amaro badan ay murqihii siiyaan, markaa murqihiina ay jareeyaan. taa ayaa dhici karta. waxaa kaloo dhici kara in qofka kaadi badan ay u timaado oo musqusha uu kusii cararayo. kafeega waxaa la ogyahay inuu ka mid yahay waxyaabaha kaadida kordhiya. xataa adigoo waxaa jira dad halkoob markay cabaanba dareemaya inay kaadi badan qabanayso oo musqusha ku cararayaan. marka midda kaloo ugu sii daranna waxay tahay oo faa'iidooyinkii aan soo sheegnay kafeega ee cudurrada ka hortegaysay waa midda hurda la-aanta keenaysa. marka meeshii wadna xanuunkii uu ka yaraan lahaa haddii hurda la-aanba ku dhacdo, qofkii maxaaba uu ku gaaraa in wadnihii iyo cudurradan kale laga hortago. maalinta habeenka ayaaba hurda la-aan ku dhacaysa, maalinta ku xigtana daal ayaa maaragtay qofka qabanaya. haddana waxay keenaysaa inuu kafee badan sii cabo, haddana hurda la-aanta sii badato. marka qofka haddii hurda la-aan ay isku arko, waxaa wanaagsan inuu iska joojiyo. dad waxaa jira aad iyo aad ugu nugul maaragtay effectiga oo keenayo kafeega, oo xataa hadday hal koob cabaan ama xataa kafeega iska daaya shaah ay cabaan, waa shaahiga xataa kafein wuu leeyahay inkastoo ay ku yar tahay, laakiin way jiraan dadka markay kafee cabaan ama shaah xataa cabaan in hurdalaan ay ku dhacayso. haddii aad tahay dadka markaa waxaad samayn kartaa inaad kafeega caadiga iska dayso. midka kafeeyinka uu ku yaryahay ee dikaafka loo yaqaano ayaad isticmaali kartaa. marka si dhibaatadii dadka badankooda ugu soo bixin, waxaa wanaagsan in kaliga aadan cabin oo asxaabtaada aad la qaybsato. kaligii cunaha noqonin, halkanna waxay noqonaysaa kaligii cabe ha noqonin, oo asxaabtaada la wadaag kafeega ama qaxwada. maaragtay kafee keliya ayay noqon. waxaa wanaagsan in gooska xataa uu dhaqaaqo oo daango lagu daro, timir lagu daro, cambuulo lagu daro iyo wixii dheeraad ah oo la heli karo oo sheekada ay ku socon karto. caawa barnaamijkeenii caafimaadka ee Dr. Minow dabiib yaqaano waxaynu kaga hadalnay qaxwada faa'iidooyinkeeda, in qofka firfircooni ay siinayso markuu cabo, in markuu muddo badan cabana ay ka hortagayso cudurrada wadnaha sida la sheegay, kaadiskoroga nooca labaad, cudurrada beerka inay ku yaraanayso, cudurrada dhimir ku dhaca ee isku dardarsanka ama cantatowga sida dementia-da, siiba tan loo yaqaano Alzheimer's dementia ay ku yaraan karto. dhibaatadana ugu weynna waxaa ka mid ah qofka inay hurda la-aan ay ku rido hadduu iska badiyo. marka haddii qofka hurda la-aan u keenayso inuu subaxdii hore hal koob ku ekaado oo duhurkii markii la gaaraba uu iska daayo, haddii taa ay weli hurda la-aan keenayso inuu sidiisaba iska daayo oo uu ku ekaado kan loo yaqaano decaf. intaa hanoo jooga barnaamijkeenii caafimaadka ee Dr. Minow dabiib yahay. caawo waxaynu kaga hadalnay qaxwada. waxaynu barnaamijkeenu kusoo gabagabeynaynaa بسم الله اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.